Qaar ka mid ah madaxdii ururada dadka naafada oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Kulankaasi oo ahaa xog wareysi geedi socodka dhismaha hay'adda naafada qaranka ee uu digreeto ku ansixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhammaadkii sanadkeenu soo dhaafnay 2018. Dadka naafada ayaa walaac xooggan ka muujiyay hakadka iyo xayiraadda lagu sameeyay geedi socodka dhismaha hay'adda naafada iyo xulashada xubnaha sare ee hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed. Dadka naafada ayaa baaq u diray madaxda sare ee dalka inay wax ka qabtaan hakadka iyo xayiraadda lagu sameeyay geedi socodka dhismaha hay'adda maantay waxaan isugu nimin inaan wax iska weydiino xuquuqdeena taasoo ah dadka naafada. Waxaan isugu nimin halkan golihii naafada qaranka, martiini naafadii joogtay, naafada xoogga dalka iyo golihii. Waxaan u taaganahay oo maanta wax iska dhaxnay meesha ay ku maqan tahay xuquuqdii dadkan naafada dawladda u ilaamis sanadka la soo dhaafay, taasoo ah hay'adda naafada qaranka soo martay labada baarlamaan, soo martay golaha wasiirada, ugu dambeyntii sanadka la soo dhaafay bishii ugu dambeysay 2018 December 31 madaxweynaha uu digreeto ku ansixiyay, taasoo u qorneed in hay'adda dadka naafada la dardargeliyo sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo dhiso lagalana tasho dadka naafada ah. Waxaan marka weydiinaynaa madaxda sharafta leh ee dowladdeena federaalka Soomaaliyeed, madaxweynihii, ra'iisul wasaarihii, labada ra'iisul baarlamaan iyo wasiiradii in ay bal noo sheegaan 4 bilood in ku dhow sababta ay u xayiran tahay, inay noo sheegaan nalka qanciyo sababta ay u xayiran tahay hay'adda 4 bilood ilaa ay hadirtaan wadatashi fiican dadkan lagama gelin, ilaa ay hadda dadkii qaabka loo soo xuli lahaa qiimeyn lagama sameynin, sida wax loo xulayo dadka naafada looma sheegin, cidda soo xulaysa looma sheegin. Waxaan marka dareensanahay inay jirto riixitaan dadka naafada la riixayo, kala sooc dadka naafada la kala soocayo, in jeclaysi waxaasoo dhan ay wax ku dhismin. Waxaan waa wax qaran, dadka naafada ay soo dhiciyo ha lagala tashto. Haddaan ayaga lagala tashan micnaheeda naafada wax ma loo dhisayo, dad kale loo dhisaa. labada aqal ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan uga mahadnaqaynaa naafada tallaabada ay u qaadeen iyo waxqabadkii ay farmeeyeen baan horta yaan ugu mahadnaqaynaa dawladdu. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaa kaloo aan lagu rabnaa inaan ogaano 4 bilood baa ka dambeysay intaas shir isku yimid ma jirto, waa tashi ma jirto, hay'ad ma hayno, wax dhaqaalo ahayna ma jirto. arrintaa meeji la dhigay inaan ogaano anigoo ka tirsan ururka haweenka naafada ayaan dawladda iyo golaha wasiirada waxaan ugu mahadcelinaynaa howlihii ay inoo qabteen oo hay'adina loo ansixiyay ilaa hadda aan waxba ka haynin, oo waxa aan ka rabna ay tahay in wixina loo ansixiyay oo shalay la yiri waa la idin ansixiyay in wax loogu qabto wixii nala bismillaah. magacaygu waa Aamina Maxamed Urow, kana tirsan golaha naafada qaranka Soomaaliyeed. ana gudoomiyaha CBR-ka. in badan waxaan soo ogeyn ama aan la soconay in madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka ay wada ansixiyeen hindis sharciyeedka oo xuquuq siinaysa naafada Soomaaliyeed. dabcan madaxweynaha dhammaan mas'uuliyiinta way ku mahadsan yihiin, aadaan ugu hambalyeynaa, aan ugu mahadcelinaynaa dadaalka wacan ee galeen ee u saxiixeen in dad naafada dalka ay wax u qabtaan siiyaan xuquuqdooda. laakiin su'aasha isweydiiska mudan ee meesha taala waxay tahay waa la ansixiyay, waana la sheegay in xuquuq ay leeyihiin dadka naafada. xuquuqdii naafada ay lahayd oo madaxweynihii u saxiixay dhammaan mas'uuliyiintina ay wada ogaayeen halkee bay ku dambeysay. dhammaan anagoo naafada ah waxaan codsanaynaa dawladda ka codsanaynaa xuquuqdii ay noo ballan qaaday meesha ay ku maqan tahay inay isweydiiso
waxaa la nin baa reer soo yidhi markaa toos qaatay markii suurnimo cadi aan ka soo tagay anaga aan soo gaarin baa jiray xagoo ku maqan yahay marka naafada cidda u xil saartay hay isweydiiso dawladdu madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxda sharafta leh oo dhamaantood hayba xoogga dalka dhamaantood waanu mahadcelinaa waana salaamayaa liidaas ay dareemeen oo qaaliga ah oo ay nala dareemeen xanuunka ay leedahay maxaa yeelay shantii qoys naafaha ayaa ku jiro shantii qoys oo meel degan qoys naafada kamid ah ku jiro amaba shantii qoys waxa laga yaabaa in 3 ruux oo naafa laga helo shantii qoys oo meel degan marka waxa jiro dhibkaas badan ayaa jiro marka dhibkaas badan waxa looga bixi karaa gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan baa liir dawladda xuquuqda aan ku leenahay inaan ka helno hay-adii lagu dhawaaqina in si degdeg ah noogula ansixiyo ama se noogula dhiso nagalana tashto maxaa yeelay waxaan nahnay dadkii mas'uuliyadda ka ahaay dadka naafada waxaa jira dad guryaha joogo wasiirada xilka hawsha aday hoostaada taala marka halkii aadna marisan maraynaa marka waxaan kaaga baahannahay in hawshaas xilkaas lagu dhiibay xil culus oo yahay aad nagala tashatid ka bacdina aad hawshaas ku dhaqaaqdid si degdeg ah xoogaa waxaad moodaa in aan ku dhararsanay maxaa yeelay waxaan isdhahaynay roob baa noo di'i raba marka roobkina xoogaa waxaad moodaa inuu naga soo daahay marka raxiim waxaan mar labaad ka mahad celinaynaa waxaan maqalay maanta wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka in ay horgeysay iyadoo awalba dhib badan u soo martay adduunkana ka soo sameelo badanna wax badan oo hawl ana ka gashay loogana mahad celinayo waxa la wixii ay soo qabtay walaaladooda tabarta yar ay u soo qabatay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo annaguna waa u ognahay naafada hadaan nahay balse maanta waxaan maqalay inay horgeysay sharcigii caalamiga oo naafada waa qaybaha laga sugayay kamid tahay oo u baahnaa in wax laga qabto aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa Allah uu fudaydiyo sida u geysayna waa Allah ku xiltiro kan kale iyo isagaba inay noo dedejiso waxaan ka codsanaynaa arinta naafada in la soo dedejiyo durba magacaabideedii wax qabadkeedii dhaqaalaheedii in la jeeyaan rabnaa waanu daahsanay way nagu daahday baahidanada badnayd inta oo sanaan sugayna markii lagu dhaqaaqay waxaan isu diyaarinay markaaba inaan wax helayno laakiin 4 bilood markay nagu qaadatay waxay nagu noqotay 4 sano camal waan daahsanay waxaan anagu uga mahad celinaynaa wixii ay soo martay oo wanaag ahaa oo dhan wasiirada iyo intii la qabtaba maantana waxaan codsanaynaa in arintan loo soo dedejiyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.